anigoo ah Rashiid Aadan Dheere gudoomiyaha ururka Haya ee ka dhisan Carabiga Ingiriiska waxaan labadii bilood ee ugu dambeeyay aanu socdaal dheer ku mareynay waddanka Somaliland goboladiisa taasoo aanu soo tirisnay qaybo badan oo ay ka mid yihiin waxbarashada sida waxbarashada horumarka ay gaadhay iyo waliba baahida wali ay qabto haddaba idinkoo mahadsan barnaamijkan taxanaha nagala socda TV-ga aanu isbuuc walba idin soo deey doono waa mahadsantiin jaamacadda Camud waa xarun ballaaran oo Soomaalidu ku kulanta runtii wataan ku sheegay hadeer lahaa 3,000 arday baa ku jira tiradoodu ku dhaysaa sanadkiiba waxaad moodaa in 800 ilaa 1,000 arday baa ku kordhay sanad walba marka laga reebo intii ka baxday 12 kulliyadood ayay hadda ka kooban tahay oo mid walba takhasuskeega leeyahay kulliyadaha sida waxbarashada businesska caafimaadka oo 4 kulliyadooda beeraha iyo deegaanka agriculture and environment kulliyada shariica wal qaanuun engineering computer science oo farbadan meel aan ka iman ma jirto geeska Afrika ardayda halkan ku jirtay inta Soomaalidu degtan waa ka wada yimaadaan wixii la oran jiray shanta Soomaaliyeed mid walba halkan waad ka helaysaa oo sample baad ka helaysaa meelaha ugu daran ay hadda ardaydu ka timaadaan muqdisho u badan yihiin koonfurta oo barnaamijyo isugu jira tababarka macallimiinta iyo kuwa kale waa galan laakiin kan tababarka macallimiinta macallimiin baa loogu tababaraa si rasmi ah halkan sanad walba 50 macallin baa la keenaa oo arday baa la keenaa oo macallimiin loo tababaraa inta dhibti joogto balse ay macallimiintu loogu sii xulo European Union ku ay maalgeliyaan dadka iskooda isu maalgeliyaan waa badan yihiin Somaliland iyo Puntland iyo Soomaaliya kale iyo waqooyiga Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti inta waa ka yimaadaan macallimiinteedu ilaa 150 professor yihiin oo shisheeye soo ka yaba isugu jira jaamacadaha adduunka markaad eegto waxay mashquul ku yihiin wax dhigid iyo research annaga waxa noo dheer in arurtan rajaha loo soo celiyo haddaan rajo la soo celina nabadgelyo ma jirto ilmuhu dadku markuu quusto bani'aadamku markuu dabaasho wax walba samayn karo tahriibkaanu isleenahay ka joojiye marka xataa hadday dhoofayaan anna wax yaqaano dhoofaa labada qaatay jaahil dhoofo aan waxba aqoonin kadeedkiisu leeyahay marka ilaa imaka ilaa da wax 1,500 arday ka badan ayaa ka baxay oo digriye ka qaatay jaamacadda Camud iyo diblomayaalba dad badan oo shaqeeya waa jiraan xataa ardaydii ka baxday halkan oo digriyada sare soo qaadatay waa noo soo noqdeen oo jaamacadda wax ka dhigaan marka annagu dadka Soomaaliyeed baan u shaqeynaa meel kasta ha joogaan waa ogtahay jaamacaduhu caalamka xuduud ma leh mar haddii jaamac xuduud u samayso intaas uma gali kartaa tirada waxay noqonaysaa sida dawladda soo kale oo iska munashiibiyoona jaamacad ma marka annagu dadkan u shaqeynaa marka dadka un xagga joogana waa wada xiriirnaa kuwa waxna soo taray iyo kuwana soo booqday iyo kuwa noo soo duceeyay inta waa leeyihiin jaamacadda qodobka runtii ugu muhiimsan ee maanta ugu muhiimsan uu qodobka jidka aad muhiim qolada jaamacaddu ma macallimiintu ama ardaydu waxay go'aansadeen runtii inay haddii la yiraahdo jidka ay waxoogaa soo dhigaan oo ay soo sameeyaan kulli aan koodkooda xoogana way furteen waxa kale scholarshipka waa run weeye iyo taa waxaan leenahay jidka wixii cidii ciidooyinka daneynaya hawlaha hadii la helayo waxa weeye in waqti la siiyo hadii la waan aad baan ugu boorinaynaa waxaan ugu boorinaynaa saad sheegaysaan ardada aan fida la bixi karaynin oo runtii iyada laftooda meel walba jooga iyada laftooda inaad hadii aad xaqab karaysaan inaad ka qabataan laakiin gunaanadkaygu waxa weeye aan inagu mahadnaqaya inaguna boorinaya waxa weeye in haddii alla yidhaahdo sidaa sawiradiina ku aragnay aad u guntataan dadka ood waxaad u qaban kartaa saan u qabansan aad iyo aad baan inagu boorinaynaa booqashada maanta haddaan soo booqateen aad iyo aad ayaan inagu mahadnaqaynaa inagoo meelo badan soo maray waxaan is leeyahay inta dadka waajibkooda garataa way yartahay waxaan filayaa in dad waajibkoogii gudanaya aad tihiin aad iyo aad wada mahadsantahay runtii anigu waxaan ahay odayaasha boorka kamid ah dadka baahan baa isoo mara saleebaan nagala hadal kani la hadal ilmihii baan wuxuu waayay waxa oo baahiyo dad masaakiin oo badan way jirtaa ilaa waxa ay kaliftay inaan anigu anoo shakhsi gooni ah inaan 10 ka bixiyo dad masaakiin walisa alxamdulillaah mahadi wax intuu waayay ka tagay oo fiibaan waayiri meelaha ku booday ma jiraan dadkii baa aad u daamaa dibadda ayaa kolka wax kale waa waxaan maxay ahayd
حاجة وحياة قبيلة وأنا خير لو قبيلة خير بيلاد هاي يا لورنا ريه بيل هذا هاي أرضي دي بقى جوكتي محي هاي وحلقة صبح فينا الله ما هيو ما دس ضد كادي بدأ يحكي مدين دال وسبع هذا حاجة فيدو وحباج library good ama central library Amud University runtii library-gan wuxuu la bilaabmay jaamacadda Amud ilaa 1989 runtii waxa weeyaan library-da ugu waaweyn baa loo tibaaxaa qaybo kala gedisan buu leeyahay hadda qaybtan aan joognaa waxa weeyaan waa qaybtii qaybahan waa qaybtii noveliska iyo English language writing dhinacan side kan oo dhani waa English common dhinacan waxa weeyaan waa politicski iyo Africa iyo wixii ku saabsan qoraalladii laga sameeyay Somaliland health and fitness xagana waxa weeyaan physiology ama philosophy education psychology sociology anthropology qaybahan waxa weeyaan waa qaybahaas buugta ardaydu ay ka qaataan waxaan qaybtani waa qaybta business and administration ama economic and management buugtan way habaysan yihiin qaybtan waa marketingka waa buug habaysan oo alphabetical order ku nidaamsan ilaa dhinacan waxa weeyaan xagani waa marketingki ilaa buugta dhinacan oo dhan waxa weeyaan buugtii marketingka ay ardaydu ay akhrisanayeen qaybihii accountingka laftiisa intaasna waa qaybta accountingka dhinacan waa managementiga qaybta soo jeeday waxa waa managementiga iyo qaybta kale management qayb loo ku qoran tahay economics iyadna waxa weeyaan waa qaybtan inta badan buugtan waa sample waxay ku xiriirsan yihiin meelo santara oo maqsana ay ku xiriirsan yihiin hadba waxa weeyaan buugtan wixii loo baahday ayaa inta la keenaya ardaydu halkan ay ku akhrisanayaan ma aha qaybtii amaahda waa qaybtii just for reading weeyaan ardaydu assignment-yada iyo research-ga waxay sameynayaan ay ka akhrisanayaan marka qaybtan oo dhan waxa weeyaan economic and management library-ga waxa loo tilmaamay runtii library-ga ugu weyn jaamacadaha geeska Afrika waayo waxa yaala 110,000 oo buugtaasi ay yihiin qaar textbook qaar reference yihiin qaar ay yihiin mataqaanaa yani subject matter-kii aan ardaydu ay qaadanayeen maadooyinka kala duwan dabcan buugtan waxay u badan yihiin buug American edition ama yani dabcan buug American u badan yihiin maxay lahayd American ayaa inta badan ay gacanta yani siiyay oo donors waxa weyn buugta Americanka ay u badan yihiin dad yani jaaliyadaha Soomaalida ayaa jaaliyada Somaliland ay waliba u badan ay gobolka Awdal ka soo jeeda in ay gacan ka geysteen iyo Soomaaliya oo maxad ardayda iyo jaamacaddu waxa dhigtay wax u badan yihiin ardayda Soomaali meel kasta ka yimaadeen gobolada kala duwan sidaa darteed jaaliyadaha degan Mareykanka North America Europe inta waxa weeyaan gacan bay ka geysteen buugta qaar baa UK from UK qaar baa yani badankooda waa USA built in 2006 by Amud Foundation, which is based in Irving, Texas. This hospital was based generally on pure donation, and it's meant to service all of the whole Awdal community and hopefully all of Somalia. It's meant to be a full-service hospital, and it will work in partnership with Amud University, the medical department. We hope for it to be a teaching hospital so that the students are able to research and have an opportunity to work as interns. We also hope for it to make it a premier destination for quality service.
The actual departments that we have currently are the gynecology, pediatric, surgical, medical, ICU, OT, lab, pharmacy, and x-ray. There are still many departments that are missing and that are not complete. By March 1st, 2011, we hope to open the hospital. We hope to open it with 17 nurses, 8 medical doctors, 2 pharmacists, and 2 x-ray technicians. Right now, we're working with 10 graduated nurses who graduated in the class of 2006, and they're working on opening the first departments. We hope to open the maternity, pediatric, medical, and surgical. haddana warbixin yaroo gaaban idinka siiyo in jaamacadda Burco waa kulli sida la wada socotaanba waa jaamacad da'yar marka laga hadlayo jaamacadaha public university-ga dalkan aynu joogno waxaa la aasaasay 2004 ayaa jaamacaddan la dhisay annaga waxaa naga go'an oo ujeedada noogu wanaagtay inay soo baxaan aqoonyahan muslina yani dad aqoonyahana oo aqoontii maadiga oo dameeri islaam leh ayaa waa targetka annaga insha Allah aanu higsanayno jaamacadduna waxaa lagu bilaabay 4 kulliyadood waxa oo ay kala yihiin caafimaadka xoolaha waxbarashada businesska iyo waxbarashada educationka intaanu nimid alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay wuxuu noo suurtageliyay oo annaga uu ku fuliyay awoodii una siiyay 4 kulliyadood dambe inaan ku darno oo ay ka mid yihiin caafimaadka dadka beeraha iyo ICT-ga iyo kulliyadda luqadaha marka alxamdulillahi rabbil caalamiin imika waa 8 kulliyadood marka labaan isku darno isku mid noqonaya المثل waa agriculture iyo caafimaadka xoolaha marka alxamdulillahi rabbil caalamiin saad la socotaan tan iyo waqtigii ay dawladda Soomaaliyeed burburtay ardaydii ugu dambeysay waqtigii dawladda ugu dambeysay Soomaaliya ka qalin jabisay caafimaadka xoolaha waxa ku xigay kuwii sanadkii naga tagay Burco jaamacadda Burco ka qalin jabiyay oo ahaa 12 dhakhtar waa 12 dhakhtar ee ugu horeeyay tan iyo waqtigii dawladda Soomaaliyeed ay burburtay tirada ardayda ilaa hadda ka qalin jabisay waa 93 arday oo kulliyadaha kala duwan ah sida uu professorku sheegayna waxa jirta in jaamacaddani ay leedahay kulliyadii xanaanada xoolaha oo marka la eego inta hadda af Soomaaliga ku hadasha meesha kulliyadaas oo kale ay ka jirto way jaamacadda Burco waxayna jaamacaddani astaan u tahay dadku markay xoogooda iyo maskaxdooda iyo jeebadooda ay isu geeyaan in ay wax abuuri karaan oo horumar ay sameyn karaan bay astaan u tahay sida uu professorku sheegayba waxa kamid ah Burco meelaha astaantan oo kale leh ee lagu xusuusto dadku inay wax qabsan karaan haddii ay iskood isu taagaan oo ay isku tiirsadaan missionka iyo visionka ama waxyaabaha jaamacaddu ay ku shaqeyso ama ay guides leedahay ama ay qabanayso ay doonayso inay soo saartana wax halkan lagu soo koobi karo maaha saad ogtiin jaamacaddu waa warshad sida ay warshad u tahayna waxa weeye warshad ka duwan warshadaha waxyaabaha materialka soo saara waxa weeye warshad hadduu ibinkeedu leeyahay bini aadan soo saarta dhisan oo maskaxdiisiina ay dhisan tahay sida professorku uu sheegay bulshadiisa wax ku biirin kara akhriya adduunba talabaadna isagii wax qabsan kara oo bulshadii kaalin ku yeelan kara haddii tiisa gaarka tahay iyo haddii tii guud ay tahay labadaba wax weyn soo biirin kara waxa kaloo kamid ah howlaha ugu muhiimsan ee jaamacaddu ay qabato ay ku duulayso professorku uu hormoodku noogu yahay aanu isleenahay wax weyn biiriya marka bulshada la eego waa laba howlood bay jaamacaddu ku mashquulsan tahay hawsha koowaad waa in ardaygaas aynu sheegayna la soo saaro hawsha labaadna waa community serviceska oo in laga qayb qaato horumarka dadka in laga qayb qaato baahidooda in wax laga taro oo wixii wax laga qaban karo haddii talo tahay iyo haddii ay aqoon tahay intaba iyo haddii xoog tahayba jaamacaddu ay isla garab taagto waxaan kusoo ururin lahaa kuleyba kelmad kooban oo ah in dadka xagga aqoonta to educate the people waxay inoo sahlaysaa dadku in caqligooda la koriyo aqoontooda la koriyo waxay inoo sahlaysaa dadku inay ka koraan sida ay u nool yihiin iyo sida ay isu arkaan iyo sida ay isugu mashquulsan yihiin iyo waxyaabaha burburka oo horseeday asbaabaha root causeska iyo waxyaabaha la midka ah marka garashadooda la kordhiyo
haddii taas la doonayana inay dadku saa u koraan la doonayana waxa lagama maarmaan ah warshadihii dadka korsani ay kasoo baxayeen oo jaamacadaha ah in iyana la tabantaabiyo oo wax lala qabto waana meesha ugu dhowey runtii bulshada maanta guud ahaan afka soomaaliga ku hadasha wax lagala qaban karo lagana horumarin karo cuquushooda marka waxaan usoo jeedin lahaa cid kasta oo kolleyba hadalkayga maqasha ka guud ahaan fariinta jaamacaddu ay gudbinayso oo ah muasasaadka tacliimiga guud ahaan in la gacan qabto oo la taageero oo wax weyn la geliya aad bay laga maarmaan u tahay jaamacadda waxaa lagu dhigtaa kulliyado fara badan oo ay ka mid yihiin veterinary medicine business administration sharaaca islamic waxaa kaloo lagu dhigtaa qaybta educationka tacliinta agricultureka iyo qaar kaloo badan jaamacaddu horta way fiican tahay waxay ka mid tahay jaamacadaha dalka inba ugu fiican horumar fiican bay gaadhay intii yarada ay jirtay 2004kiina waa la dhisay jaamacadda waxaa dhigtaa kolley marka anugu tarkoob rasmi ma hayo laakiin waxaan u maleynayaa ilaa 2,000 oo arday inay ku dhow jaamacadda dhigtaan jaamacaddu xagga suuqan waxay ku leedahay center bay ku leedahay oo community lagu dhigto qurbajoogga gobolka u dhashay ama dee gobolka dhashay jiray waxaan far lahayn inay dee jaamacadda wax u qabtaan oo dee laabka loo baahan yahay iyo projectada loo baahan yahay iyo computerada loo baahan yahay iyo IT-ga waxayn jaamacadda ay qabtaan iyo inay dhismo cusub u keenaan jaamacadda ay dhisaan jaamacaddu dee fara badan imka galaaskii waxaan ku dhiganaa 8 qof oo fresh ku dhiganaa hoolkaasna waxaan ku dhiganaa in dee jaamacadda loo dhiso waxyaabo badan baa maanta halkan iskuulkeena ku yimaado oo nala ku soo casuumo waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudida maamulaha iskuulka oo maanta fursad weyn ay noo tahay inaan idin nimaadno dhammaantiin farxadna weyn aniga waliba rashid ahaan tahay inaan iskuuladii halkan aan idinkoo anigoo intiina dhalinyaro intaa leeg ama iskuulada halkan ka dhameeyey oo aan iskuulkii hoose ka galay iskuulkii dhexe farxad bay tahay aad iyo aad u weyn waxaan halkan idiin sheegayaa maanta meel kasta joogta adduunka haddii aanad wax baranin waxba ma tiid maanta nimanka iminka dowladda somaliland madaxda haysata waa nimanka wax bartay nimanka adduunka wax ka dhiga waa dumarka iyo raggii wax bartay haddii aanad dadaalin waxba ma tiid macnaheedu taasaan idinku soo sheegaya idiin sheegaya dhammaantiin aad baan ugu faraxsanahay inaan dhammaantiin maanta idiin nimaadno sida ay walaaladeen idiin cabireen inamadiina yaryar ee 10 jirada halkan taagan 20 sano soo socda idinka noqon doona maayarada magaalada barasaabada magaalada iyo runtii aqoonyahankii u soo baxayay ummadda Soomaaliyeed ama jamhuuriyadda Soomaaliland ma khaasahan adoon soo tilmaano taa awgeed iyaguna waynu soo dhaweynaa walaaladeen waana bogaadinaynaa waana mahadsantiin oo idinka macdooleynaa nimanka waxaanu gali doonaa xiisadeena si special aynu fasal ugu gali doonaa u dareeri doonaa iskuulka magacii geeska afrika ka waran iskuulka adiguna imtixaanada maxaad gashaa tirigaad gashaa iyo ku dhawaad soo maaha maadaad ku wanaagsan tahay tarbiyada ya maasha allah maxaad rabtaa inaad noqotid markaad weynaatid madaxweynaad rabtaa somaliland maasha allah waay aad u mahadsantahay waay salaam calaykum magaciina iskuulka Horn of Africa East Africa ka waran iskuulka waa iskuul fiican aad u wanaagsan yahay imisa sanaad digrinaysa imika
iskuulka waxaan soo galay ilaa iyo fasalkii ugu horreeyay haye iguna standard 6 baan standard 6 maadadaad ku wanaagsan tahay inaad marka maad imika sayniska ku wanaagsan tahay maxaad doonaysaa inaad noqoto mustaqbalka saynisyahan ya saynisyahan baad doonaysaa inaad saynisyahan noqotid oo adduunka meel sare ka gaadhi oo ciyaaraha iyaga ma ku wanaagsan tahay iyaga ciyaaraha ya maxaad u fari lahayd iminka inamada da'daada ah ee iminka intaada laaleege ee jooga qurbaha waxba baranin ee fursadda wanaagsan haysta lacagta iyo educationka ama tacliinta freegaa haysta ee haddana ka faa'iidaysanaya maxaad ku odhan lahayd waxaan odhan lahaa halkan anigu waxaan odhan lahaa waxbarta runtii halkan anigu waxbaan ka baranaa idinkuna waxaan odhan lahaa waxbarta maxaad u fari lahayd dadka inamada da'daada ah ee qurbaha jooga yacni wax kasta ay free u yihiin ee haddana ka faa'iidaysanayna meelaha iska fadhiya ama xabagta dhuuqaya xabagta cabaya waxaan u fari lahaa inay xabagtana iska daayaan waalidkoodna xaq dhowraanay maxaa tahay iskuuladana lagu daro wax ay wax bartaan waxa aan mas-uulka ahay urur la yidhaahdo Togdheer Women Association tawa ururkaas oo ah iska xil saaray inuu ururiyo caruurtan laha ah ee agoomaha ah sababtan ururina waxay ahayd yani waxa jirta in meela kale maxaan ku dhahay lagu ururiyo inamadii deetana hablihii runtii yani ay noqdeen qaar aan iyaga dee war laga hayna ma la ilaaway saa daraadeed ba waxaanu doonay inaanu haddana hablahana ururino oo aan maxaan ku dhahdaayay wax baro intii markaasi maxaan ku dhahay awoodayda ah wixii awoodayda ka baxsanayna cidii kale anaga aanu maaragtay kala kaashan karo aanu la kaashano ardayda halkan dhigataa waxa weeyaan ardayda ku qorani waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa 34 ablood inta ku qoran halkan caqabadaha na hortaagan maxaan ku dhahaa noogu daran horta waxa weeyaan dad marka meel lagu ururiyo khasbiyan waxa markaas ay u baahan yihiin in ay helaan daryeelkoodii markii ugu horeysay ee aan furay ardaydan ku furay waxaan dhowr iyo 10 waxaan u sameynay drays baan u keenay buugaagtii qalimaantiibna waan u keenay iyo kutubtii ay wax ku dhiganayeen waxa kale aan u sameynay oo ilaa imkan ay isticmaalaan break time yar oo ilmo yar oo saaka soo baxay oo gurigoodii ka yimi oo ilaa 12 wax dhiganaya wuxuu u baahan yahay inuu maartay maxaan ku dhahdaa marka in break time kooda inay qaataan waxa kaloo jirtay labadii iidood laftigeeda inaanu iyadana community-gan magaalada oo kale aanu u bandhignay inaanu hayna habruur taageer waliba khaasatan dumar u badan dadkan u bandhignay dumar ahaayeen caruurta yarna ay u baahan yihiin in ay iidaan oo la mid noqdaan farxadda caruuraha kale ay helaan inay iyaguna helaan marka run ahaantii ilaahay khayr siiyo support bay naga siiyeen intii aan u bandhignay deetana waxa markaasi labadii jeerba la siiyay caruurta dharkii ay ku iideen ee ay kala mid noqdeen farxaddii caruurta ay kala qayb qaateen waxay tahay fariinta aan gaarsiinayo ama aan jecelahay inaan gaarsiiyo walaalahayga qurba joogta in ay nagala qayb qaataan baahiyaha ay leeyihiin caruurtan yar agoonta ah ee aanu halkan ku ururnay iyo kuwa kale aanu liiskaraynay ee iyaguna maaragtay aanu la jecelahay inaanu maaragtay maxaan ku rahdaa iyagana aanu goob u samayno ama ay meel isugu yimaadaan inay nagala qayb qaataan oo weliba khaasatan waxyaalaha baahida noogu faraha badan leh ah baabuurkii la isugu keeni lahaa caruurta iyo gurigii la isugu keeni lahaa macallimiintii break time-kii wixii uu fara badan yahay wixii wax la horta loo qabanayay marka wixii awoodayada ah mooye wixii naga baxsan laftigeeda in ay nagala qayb qaataan maxaan ku dhahday dadkaasi walaalahooda ama caruurtaaday Soomaaliyeed ee dhibtaas ay haysato runtii yani nagala qayb qaataan ayaan aad iyo aad u jecelahay ayna isku dayno inaynu awdno godololooyinka ama dhibaatada haysata caruurta yar yar haysata waayo haddii aanu jirin aabe waxa weeyaan hooyo waxay qaban kartaa way iska yar tahay maca daalik dee waxay tahay qof uun daryeel maxaa leeyahay barbaarintoodii iyo waxyaalaha mooyaane aan xitaa awood weyn u lahayn inay maanta dee kafaalo qaadato caruurteedii oo dhan dadka laftigiisuna ay yihiin dad dhulkii dee joogana badidoodii ay yihiin dad iyaga laftoodu iska tabaalaysan ay yihiin marka insha allahu tacaala waxaan aanu aad iyo aad ugu boorinayaa inay nagala qayb qaataan caruurta yaryar ee agoonta ah ee aanu isku dayno inaanu ururino in ay iyaguna laftigooda maartay wax nagala qabtaan inay hami fiican ama maartay maxaan ku rahdaayay heer aad iyo aad u wanaagsan run ahaantii si looga gaadho ayaan aad iyo aad u jecelahay waayo waxa weeyaan dee waxaynu naqaanaa agoonku inuu yahay mid waajibaad runtii yacnihii ku leh dadka muslimiinta waajibaadkaasna inaynu kasoo baxna loo baahan yahay intaasi ayaan kolley anigu ku taakeedin lahaa ama aan ku adkayn lahaa baahida kale aan soo aragnay waxa weeyaan
xagga iskuulada xagga tacliintu inay aadin wax loo barto laakiin barnaamijka jira waxa weeyaan kordhinta waxbarashada inay qurbajoog ka qayb qaataan oo sanad walba yimaadaan wadanka oo ay la shaqeeyaan iminka waxa jira macallimiin badan waxa jira dad badan oo jaamacadaha ka soo baxay oo education ka soo bartay marka inay yimaadaan wadankoodii oo ay halkaas dhalinyaradii iyo macallimiintii ay waxay ku dhaamaan khibradda ku dhaamaan yani quality-ga ama standardka sidii loo improve gareyn lahaa ka qayb qaataan ama wasaaradda la shaqeeyaan aad iyo aad u mahadsantihiin barnaamijkii sida xiisaha badan ee qiimaha badan ay ula socoteen daawashadiisa haddaba waxaan idin sheegayaa in wiiga dambe aanu sidoo sii socon doono sidaas barnaamijku halkaana kala socotaan waxaan filayaa inaad wax ka faa'iidaysateen barnaamijkan waxaana idin soo kordhiyey haddaba waa mahadsantihiin waana inoo iyo usbuuca dambe